hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ay muddo xileedkiisii sharciga ahaa ka hartay 7 bilood ayaa xoogga saaraya damaciisa ugu gogol xaarayo muddo kororsi uu xafiiska ku sii joogo isagoo ku dhex dhuumanaya barnaamijkiisa ugu magac daray dimuqraadiyadda Puntland. Siciid Cabdullaahi Dani oo Puntland maamulayay 4 sano iyo dhowr bilood ayaa muddo xileedkiisii isaga dhameeyay dagaalka aan la aqoon ujeedkiisa ee uu kula jiro dowladda federaalka Soomaaliya isagoo 4 sano iyo bilooyin dagaal kala soo horjeeday farmaajo halka uu haddana 1 sano mucaarad ku ahaa Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana magaalada Garowe ee caasimadda Puntland xalay ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan ciidanka maamulka Puntland kuwaas oo ay qaarna difaacayaan aragtida Siciid Cabdullaahi Dani kuwa kalena ay diidan yihiin damaca Dani ee muddo kororsiga. waxaana maanta difaac isugu jira gudaha magaalada Garowe 2 ciidan oo ka wada tirsan Puntland kuwaas oo maanta xaalkoodu marayo gacan ka hadal iyo inay awood ciidan ku kala baxaan taasi oo xaalka Puntland si adkaynaysa. sidoo kale Siciid Cabdullaahi Dani oo hadda xoogga saaraya sidii uu xoog iyo xeelad midkii ay noqotaba ku sii joogi lahaa Puntland ayaa wajahaya cadaadis xoog leh oo ay saarayso dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo siyaasiyiinta diidan damaca Siciid Cabdullaahi Dani ee raadinaya xukunka Puntland. sidoo kale Siciid Cabdullaahi Dani ayaa lumiyay dhammaan siyaasiyiintii ugu miisaanka cuslaa gudaha Puntland taasi oo ku sawiraysa sida uu Siciid Cabdullaahi Dani ugu dhigan yahay dantiisa gaarka ah iyadoo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash uu diidan yahay sida uu wax u wado Siciid Cabdullaahi Dani. dadka u dhuun daloola siyaasadda maamulka Puntland ayaa Siciid Cabdullaahi Dani ku eedeynaya inuu taladii Puntland isku koobay oo wax uga diiday siyaasiyiintii la yaqaanay ee reer Puntland iyo odayaashii dhaqanka Puntland isagoo doonaya inuu wax walba ku xalliyo xoog taasi oo ay dad badan ka walaacsan yihiin waxa ka dhici doona Puntland haddii uu Dani isku dayo inuu muddo kordhin samaysto iyadoo aan heshiis lagu ahayn. sidoo kale siyaasiyiinta ka soo horjeeda qorshaha Dani ayaa isku diyaarinaya sidii ay maya u dhihi lahaayeen damaca Siciid Cabdullaahi Dani ee ah xukun isku dhejinta. dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska Puntland Muumin Cabdi Shire oo uu dhawaan Dani u dalacsiyay taliyaha ciidanka booliska Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen sidii ay uga hortagi lahaayeen kuwa diidan doorashooyinka Puntland isagoo sheegay inay beegsan doonaan siyaasiyiinta soo abaabulaysa ciidanka iyo shacabka isagoo intaas raaciyay inay shaqadooda wadan doonaan cidii xabad ku soo ridana ay la dagaalami doonaan soona xiri doonaan. hadalkan ka soo yeeray taliyaha ciidanka booliska Puntland Muumin Cabdi Shire ayaa u muuqda mid uu wax ka og yahay hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kaasi oo la doonayo in lagu beegsado siyaasiyiin gaar ah oo diidan qorshaha Siciid Cabdullaahi Dani. waxaana muuqata inay Puntland cagaha la gashay marxalad adag taasi oo aan la aqoon dhamaadkeeda. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Puntland.